agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Bakar Maxamed oo weheliye afayeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer ayaa kormeeray iskuulada uu ka socdo imtixaanaadka shahaadiga oo guud ahaanba Soomaaliland ka bilaabmay 15 bisha Juun. kormeerka agaasimaha oo qayb ka ah dadaalada ay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ku hubinayso habsami socodka imtixaanaadka shahaadiga ee guud ahaanba ka socda dalka. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashi, maamulaha iskuulka hoose dhexe sare Sheekh Ibraahim Cabdiraxmaan Axmed Cawad iyo mid kamid ah supervisor-rada imtixaanaadka shahaadiga ee gobolka Togdheer ayaa agaasimaha uga warramay qaabka uu socdo imtixaanaadka shahaadiga ee ka socda gobolka Togdheer. oo fadhiya 5,960 arday oo ka kooban 1,650 arday oo secondary ah iyo 3,419 ah primary oo fasalada sideed fadhiya. tirada ardayda waxay fadhidaa 26 goobood oo 10 goobood ay yihiin dugsi sare, 10ka gooboodna 6 kamid ay gudaha magaalada Burco, 4 kalena ay yihiin miyiga. 16ka primary-ga soo harayna 8 dabada iyo 8 gudaha ah. waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha iyo afayeenka wasaaradda iyo gudoomiyaha waxbarashadaba ku soo dhawaada Sheekh Ibraahim. waxaan farxad noo ah in imtixaanka si aad u qiimo badan maalintii saddexaad inoogu socdo goobtana xaqiiqatan waa ku faraxsanahay inay la joogaan oo goobtan uu joogo mas'uul aad u degan. iskuulada halkan la joogaa waa 12 iskuul, 12ka iskuul oo qaarkood hal fasal aan u hayo, qaarna aan 2 fasal u hayo, 2 iskuulna aan 3 fasal u hayo. 19 fasal baa ku jira. afayeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahim Xasan ayaa isaguna bogaadiyay qaabka uu imtixaanaadku uga socdo magaalada Burco iyo sidoo kale deegaanada uu xukumo gobolka Togdheer. waxaan bogaadinayaa oo hambalyo u dirayaa guud ahaan howlwadanada imtixaanaadku meel kasta joogaan. waxaan eebowga rajaynayaa insha Allah dhammaanteen Ilaahay noogu rajaynayaa in imtixaanaadku si nabadgelyo ay noogu soo gabagaboobaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa howlwadanada xafiiska imtixaanaadka guud ahaan gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka, wasiirka wasaaradda waxbarashada Mudane Cismaan Jaamac Aadan iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Bakar Maxamed oo kormeerkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ay soo saarayso arday aqoon iyo akhlaaq leh. ardayga soo gudbiyay shahaadada naga qaadanaya Soomaaliland gudaheedana deen wax tar ka yeeshaan doonaa caalamka markuu tagan in la tartamo bulshada kale caalamka inuu baahanay dugsiga sare. runtii waxaan ka marakacaynaa imtixaanku inuu si qurux badan oo wanaagsan uga socdo markaa gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco. howlwadanada imtixaanka ee halkan jooga iyo mas'uuliyiinta wasaaradda aad iyo aad uga amaanan yihiin. sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Bakar Maxamed waxa uu sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay adkaysay nidaamka loo galayo imtixaanaadka shahaadiga, isagoo ku dheeraaday in wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ay tallaabo ka qaadayso cid kasta oo isku dayda inay baalmarto nidaamka loo dejiyay imtixaanaadka shahaadiga. waxaana ardayda kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan moobilada iyo sidoo kale qishka. dhowrka goobadan soo marnay ilaa saaka waxaan runtii la kulanay markaa 3 moobil oo kaliya markaa ayaanu la kulanay. 3dii moobilna ardayda waa laga qaaday, kalaaskana waa laga saaray. runtii waa siyaasadda ay xukuumaddu qaadatay in qishka la cirib tiro oo la dagaalamo. xagga tayada wasaaraddu runtii culays badan bay sanadkan saartay, waa la sii kordhinayaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo kii buugaagta qaybiyay ujeedada buugaagta waxay in ardayga la siiyo inuu buugiisa akhristo. muddadii buugaagta la bixiyay iskuulada dawladda arday fara badan baa runtii soo bedelatay. siyaasadda xukuumadda Muuse Biixi waxa weeyaan in 5 sano dhammaan macallimiinta waddanka oo dhan la tababaro. Khaliil Barrawraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.